maanta halka kan waxaan iskugu nimid walaac ama walwal naga haya magaalada Gaalkacyo Gaalkacyo waxaad la socotaan meel aad iyo aad xasaasi u ah inay tahay meel culus oo aan u baahnayn culays kale inay tahay baad ogtihiin meeshii galmudug laga soo aasaasay weeye waxay joogtaa caawa Dhuusamareeb caasimadda galmudug ma doonayna marka Gaalkacyo inay ku noqoto waxaan maqlaynaa oo la soconaa shirada inay ka dhacayaan Gaalkacyo oo hogaaminaya madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle halkan waxaan u nimid saxiixay uu ogolaaday in galmudug lagu dhiso Dhuusamareeb waa nasiib daraan leenahay in caaway ay la yiraahdo waxay joogtaa Gaalkacyo waxba lagu dhisayaa arintaas waxaan rabnaa inaan ka digno inaysan galmudug dan u ahayn in qabiilada degan ama qabiilka degan oo sac la yiraahdo inaysan dan u ahayn hadda Gaalkacyo kaligeed ay dawlad noqon karto ayadii kaligeed baa markii hore lagu aasaasay waxaana la hubaa inaysan kaligeed ama sharciga constitution ama sharcigaba aysan ku aqbali karin ama aysan ahayn galmudug waxay la qaadatay galmudug ummadda Soomaaliyeed ee galmudug ah oo halka kan shirkoodii uu fadhiyo oo madaxweyne xaaf uu saxiixay waxaan maqlaynaa shirkii halkan ka socday shir kaleeto inuu hadda uu ka furay madaxweynuhu magaalada la yiraahdo Gaalkacyo dad badan hadii qof uu wax baasho ama uu wax sameeyo ma la waayo wax iska faa'iideysta annaga in la kaga faa'iideysto Gaalkacyo ninkii halkan ka xanaaqa adeer ma aqbali karmaan aqbalayno waxaan doonaynaa in wadada saxda la soo qaado waana kaga digaynaa waana ka waaninaynaa waxaan marka ugu dambeeyay u sheegaynaa inaan aqbalin mana aqbali doono intaasaan rabaa inaan warkayga ku soo gaabiyo aad iyo aad baan waxaan u salaamayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay nimanka raba inay kaga faa'iideystaan waxaan ku noqonayaa mar kale nimanka raba inay kaga faa'iideystaan Gaalkacyo geeska degan oo maamul goboleed kale nagu degan yahay dawlad baan ka dhisaynaa inaan aqbalayn waana kaga digaynaa waxaan leenahay ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo aqbala dadkiina iyo maamulka la dhisayo ninkii wax qabaana waxaan qabnaa in la qancin doono insha Allah wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ujeedada shirkan aan u qabanay waxa weeye magaalada Gaalkacyo dad isugu tagay oo qoraalo badan soo sameeyay in ay rabaan dawlad inay dhisaan galmudug hal dawlad goboleed weeye hal madaxweyne iyo hal system bay u baahan tahay kaasna waxa heshiis ummadda Soomaaliyeed ku noqotay shirka Dhuusamareeb ka socda iyo baarlamaanka Dhuusamareeb ka soo baxay madaxweynihiina la sugaayay madaxdii baarlamaanka ma jiro dawlad kale oo galmudug ay u baahan tahay ama la dhisi karaa ma jirto dadka isku dayaya run ahaantii waxa weeye waa xasiloon daradii iyo qaski siyaasadeed oo Soomaaliya hore u ragaadiyay mana la aqbali karo mana aqbalayno inay Gaalkacyo wax noocaas ay ka dhacaan marka laba arrimood ayaan rabaa inaan walaalaha arintaas ku hawlan aan kala hadlo koow madaxweyne Axmed Ducaale waa nin weyn oo oday ah oo siyaasadda hadda dhamaatay hogaaminayay labadii sano ugu dambeysay madaxweyne Axmed halkan ummadda Soomaaliyeed isugu timid saxiixyada ay ku joogaan oo marna wasaaradda ugu wakiilatay marna guddigan farsamada maanta baarlamaanka soo saaray wax ka soo saartay halkaas ay ku dhamayd adoo sharaf leh xilka inuu warijisaa kaaga haray naga daa walaalow qas kale iyo damac kale iyo degaankii aan ka soo jeednay inaad gadaal ugu laabatay sax ma aha arrintaas sideedana adduunka dhisan wuxuu ku dhismay dad talada loo dhiibay iyo dad tanasulay saasa adduunka ku dhismay ayadii qaado
ka tanasul ummadda dhib ha ku soo celin magaxuma iyo kaa raacay walaalkay axmed baan saas leeyahay madaxweyne axmed waana ka codsanayaa inuu arrintaas aqbalo oo shacbiyadda uusan dhib maanta ku hogaamin dhinaca kale walaalaha soomaaliyeed oo halkan ninkii dhibsi ka dareema ama wax ku dhibsadaaba uu ordahayo tagahayo gaalkacyo walaalayaalow arrintaas ka istaaga idinka sharaf idinma aha wanaagna idinkaga soo dhex mahayo annagana lugooye nugu tahay qof u ogol deegaanka iyo ama aqalkiisa dhib in lagu abuuro soomaaliyeedna ma jiro wixii adinku inaa yeeli lahayn hanugu kalifinina oo hana yeelsiinina ka istaaga dib ugu soo laabtay Dhuusamareeb dawladda inteeda barnayd waa hartay nin walba beelbu ka soo jeeday beeshiisa heshiis hala galo yaan qasna la qasin arrintaas waa ka digaynaa dhibaatadeeda iyo ceebteeda intaas haddaan halkan ku koobo waxaan rabaa in haddii dadku ay dhex maro heshiis baa laga galaa waxaan diyaar u nahay cid walba oo aan ka gacan siin karno inay waxa ay tabanaysa lagala hadlo inaan magaranaysaa kala hadalno oo cid ay kala hadli lahayd aan u soo fariisino annagoo uga jeedna meeshaan hal dawlad oo xasiloon inay ka soo baxdo inaan dhib badan u marno meesha u dambeeya waxaan rabaa inaan la hadlo dalku dawlad buu leeyahay galmudugna xildhibaanadeedii baa bilowday dawladdii dhaxana waa joogtaa oo hawshan agaasintooda loo dhiibay waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada galmudug oo kuwii annaga gaarka noo ay hor fadhiyaan iyo dawladda dhexe amniga gaalkacyo in gacanta lagu dhigo loona diido xasilooni darro siyaasadeed lana amro ciidamada kala duwan si ay amniga u sugaan intaasna waxaan ka codsanaynaa dawladda dad soo daalay baan nahay dad hadeer qas iyo dhibaato ka dhexi karana ma ahin baaqaas waxaan ka codsanayaa madaxda sare ee dawladda iyo xildhibaanada u soo baxay beeshaan aan ka hadlayno oo maanta hor fadhiya labaduba in ay arrintaas u istaagaan amniga magaalada laga shaqeeyo ciidamada amar la siiyo wax laga qabto xasiloonina lagu soo celiyo saxaafadan maanta waxaa loo qabtay dhibaatada ka jirta gobolka mudug ka jirta ayaa loo qabtay gobolka mudug dadkii deganaa oo ka soo jeeday ayaanu nahay ummad kalena way nala degan tahay waxaan ka codsanaynaa dadka mudug ka wada qaska ka wada inay qaska ka daayaan dadkooda dalkooda dantooda diintooda ay u daneeyaan oo ka joojiyaan waxyaabaha maanta qaska ah oo ka jira haddii qaskaas uu sii socdo ilmaheena dadkeena dalkeena danteena ayaa ku baaba'aysa waxa kale oo ku dhimanaya magacii galmudug oo 2004 la agaagumay la soo gaarsiiyay maantay gobolka Dhuusamareeb galmudug la ballaariyay ayaa asaguna ku dhimanaya waxaan codsanaynaa in laga joojiyo madaxweynaha ha noqoto siyaasiyiinta kale ha noqoto ganacsatada iyo xuqaasha ha noqoto qaska maanta laba geesoodka oo meesha laga wada laga joojiyo gobolka hal yimaado dawladda waxa lala qaybsado wixii dhiman baan anfacaya wixii wanaagana anfacaya markii aan ka qabano beelaha ka yimid mudug oo beeshaan saacadaan ka qabano khilaafyo badan iyo hawlo badan baa ayaa ka yimid qayb waa la dhameeyay qaybo badan baa la dhameeyay qaybana waa dhameeyay qaybtaasna waxaan rajaynaynaa ayaduna inay salaaman doonin dawi ku laaban doonto ayaan rajaynayaa marka waxaan doonaynaa madaxweyne xaaf waxaan ka codsanaynaa gobolka dalka dadka danta magaca inuu u daneeyo oo laga daayo maanta ummadda laga daayo ayaan ka codsanaynaa waa codsi beelaha kale waxaan ka codsanaynaa guri walba haddii la soo gubo dhibkeeda ay leedahay dhulka yaan la gubin maamulkana xanaaqah laga daayo ha lagu soo laabto dawladda ha lagu soo laabto. Assalaamu calaykum.